bismillah muuqaalkan gaaban waxaynu ku eegaynaa data levels heerarka daatada suuqa forex ka hor intaynaan u gudagelin data levelska iyo inta heer ay tahay aynu isla eegno waa maxay waxa loo yaqaano data ama xog waxa weeye waa collection of prices waa soo ururinta priceska kala duwan quoteska oo waxa weye order booka volumeka ay samaynayaan waxa loo yaqaano interbankisku kuwaasoo ah bangiyada adduunka network isku xiraysa iyo brokerska liquidity providerska markaas oo currency ay trade garaynayaan marka forex data wax kale maaha waa isku xidhka ama soo ururinta priceska oo tusaale yaa iibsanaya yaa iska iibinaya xagee buu suuqu u socdaa xagee buu u jahaysan yahay waxa weeye buyersku intee xoog leegyihiin sellersku intee xoog leegyihiin buy limitka hoostaa laan badan tahay sell limit aso marka datadaas ayaa waxa weeye collectionkeeda wuxuu noqonayaa aynu idhaahno forex data waana meesha uu ka imaanayo candlestick-gu oo aynu arkayno waxa weeye priceka openkiisa closekiisa highgii u sarreeya u gaadhay lowgii u sarreeya u gaadhay iyo haddii uu furan yahay the current price ama current waxa weeye timeka hadda aynu joogno priceku meesha uu maraayo marka hal dhibaataa marka jirta forexku waa decentral oo xudun dhexe male exchange dhexe oo weyn male oo dhammaan priceska lagu ururiyo sida waxa weeye futureska suuqyada futureska oo forexka qudhiisa wuxuu leeyahay qayb futures ah oo waxaa la dhahaa currency futureska ama futureska kale ee stockska futureska crypto waxyaalahaas oo kale kuwaas centralized way waana meeshaynu datada aynu u soconno oo isticmaali doono laakiin forex trading ma laha waxaa loo yaqaano centralized data waa sababta manipulationku uu aadka ugu badan yahay dhammaan liquidity providerska bankiska institutionska iyo waxyaalaha trade garanaya oo iska mid walba xogtiisu gaar u raaca marka ma jirto meel aynu ka arki karno buyerska suuqa galaya iyo sellerska suuqa galaya aan ka ahayn candlesticka caadiga ah ee qaawan ee markaa haygiisa iyo closekiisa aynu arkayno sababta forex marka aynan datadiisa waxa weeye u helayn ama aynan ugu sii dhacayn ama aynan waxa weeye go-aan ugu qaadan kareen waxa weeye waa decentralized waa decentral suuqa forex oo money liquidity providers baa jooga liquidity providers aad u fara badan baa jooga kumanaan marka kumanaankaas xogtooda ma heli karno sababta mid walba waa decentral okay oo iskiis wax u qabsanaya waa broker dependency oo brokerku isaga ayay ku xidhan tahay xogtan siduu u gudbiyo wuu haysanayaa xogtii oo ma sheegayo brokerkii buyerska iyo sellerska ama positionka ama orderka suuqani dhanka uu u socdo simple price actionka unbaad ka arki kartaa absolute ma aha tusaale euro USD brokerka Uganda waxay ka duwanaan kartaa euro USD brokerka muxuu ahaay forex.com ama xness ama IC market marka dhammaan isku mid ma aha sababtoo ah meel central ma jirto marka su'aal baa imaanaysa oo ah haddii aanay central ahayn muxuu priceku isla socdaa oo badanaa priceku isla socdaa haddaynu hadda eegno 10 broker oo kala duwan euro USD aynu eegno at the moment of speak waxaan arkaynaa inay isku meel ku trade garaynayaan waxay wada socdaan waxyaalo waxaa jira la dhaho arbitrageurs oo high frequency trading iyo algorithms baa ka faa'iideynaya milliseconds haddii uu brokerada ka mid uu dib dhaco kaasay soo bay garaynayaan kii hore u kacayna way sal garaynayaan faa'iiday ka helayaan marka computers aan caadi ahayn ka shaqeynaya xogtooduna way isla socotaa laakiin waxaan ka hadlaynaa meeshan waxay tahay inaynu helno suuqa order flowgiisa ama datadiisa suuqa inaynu helno sidaa darteed halkii aynu isticmaali lahayn suuqa spotka oo forex spotka waxaynu isticmaalaynaa futureska oo tusaale halka haddii ku trade garaysid gold oo kale halka isticmaal lahayd spot gold oo XAU USD u yaala MT5 ka ku jira ku analyze garay lahayd ama trading view gaaga waxa weeye gold oo wanda ama forex.com aad analyze garan lahayd waxaad analyze garanaysaa oo aadaysaa gold futures sababtoo taas datadeeda heli kartaa gold spot datadeeda ma heli kartid laakiin gold futures datada waad heli kartaa waxaad helaysaa positionska suuqa ku jira waxaad helaysaa sell limitka suuqa yaala haddii abay u socotay oo kale waxaad helaysaa meelaha suuqa laga soo celin karo hoos loo celin karo hadduu hoos socdo waxaad helaysaa meelaha kor looga celin karo oo buyersku ay positionskooda dhiganayaan level 1 waa basic data baa loo yaqaanaa marka data saddex baynu qaybin doonaa waa level 1 level 2 iyo level 3
level 1 waxay noqonaysaa waa basic data, waa suuqa basic datadiisa oo ah chartigan halka inoo ka muuqda. Waxaynu helaynaa openka candleka, closeka candleka, highga iyo lowga. Waa historical marka. Ma arkayno real data. Sababtoo ah candleku marka uu furmo oo lagu trade gareeyo kadib wuxuu ku sawirmayaa price actionka waana secondary data. Marka datada koowaad ee suuqa forex aynu isticmaalnaa waxa weeye waxayna tusaysaa bidka iyo askiga u dambeeya. oo tusaale marka aad MT5 ka gashid waxa arkaysaa laba line oo mid green yahay oo waa buy limitka ugu soo dhow price-ka, midna red uu yahay waa sell limitka ugu dhow. Marka ka unbu ku tusinaya oo xataa ku tusin maayo kuwa ugu soo dhow inta sell limit iyo inta buy limit oo kala taala, sadarteed ma arki karaysid. waa retail-ka ayaa isticmaala oo inaga oo kale inta u badan waynu isticmaalnaa. Hadda waxaynu nahay qoladii u horreysay ee Soomaali ah ee chartigaas level 1 ka guurtay ama level 2 tijaabisay oo ka war doontay waynu nahay. Marka inta u badan waa retail traders ka isticmaala, waxaana loo isticmaalaa chart based strategies-ka ku shaqeeya qaabkeenu u shaqeyno u badan. oo tusaale inaad tiraahdid kanalka hadduu halkaa dhaafo saasaan sameynaa, hadduu dailygu soo noqo imbalance-ga aan fair value gap ka yimaado rejection uu sameeyo halka ku xidhmo entry noocaas ay siiyo saasaan marka waxaa loo isticmaalaa level 1 inaynu ku qaadano nidaamkeenii caadiga ahaa dhammaan istaraatiijiyadaha Soomaalidu ay isticmaalaan uu ku shaqeeyo. Marka limitation bay leedahay. Limitationskeedu waxa weeye waa top of the book, waa buugga topkiisa. Macnaha waxaan arkaynaa meesha bidka iyo askiga u dambeeyaynu arkaynaa, labada line u dambeeyaynu arkaynaa. Ma arki karno hidden liquidity, ma arki karno liquidity-ga qarsoon, ma arki karno suuqa depth-giisa, ma arki karno inta uu suuqu buy limit iyo sell limitka suuqa yaalla, ma arki karno price-keena meesha ka sarreysa meesha ka hooseysa. Real time order flow-gana ma arki karno waxa weeye bidka iyo askiga ama aggressive buyerska suuqa intay buy la dhacayaan ama aggressive sellersku intay sell suuqa la dhacayaan. Marka intaas waa level 1 data. Kasoo gudub level 1 data waa ila taqaanaa qof walba Soomaali ah oo trader ah baa isticmaala. Waana trading view-ga iyo MT5 ka in analysis ku samaysid. Level 2 data baynu imaanaynaa waa footprint oo ah candle-kii halkaynu arki lahayn candle inaynu aragno candle orderska ku jira dhammaantii tick by tick data walba. Okay, level 2 datadaas waxay ku tusinaysaa multiple bid and ask layers oo waxay ku tusinaysaa macnaha bidku waxa weeye buy limit, price-kaagu meeshuu joogo waxay ku tusinaysaa meelo level ka hooseeya oo buy limit yaallaan iyo level ka sarreeya oo buy limit sell limit ay yaallaan. And then waxaad arkaysaa supply-ga oo buy limit iyo demand-ka oo sell limit. And then waxaad arkaysaa liquidity-ga suuqa. waxaad dareemaysaa ama qiyaasi karaysaa meesha uu suuqu u carari karo marka loo eego buy limit-ka iyo sell limit-ka. Marka waxaad arkaysaa inta order oo suuqa fadhiya ee sugaya inay price-ka soo galaan. waxaad arki karaysaa waxaa isticmaala scalpers-ka oo badanaa sida aan gold ugu trade gareeyo sidoo kale waxaa isticmaala short term traders-ka oo intraday London session, Asian session, New York session dadka soo fadhiista suuqa oo aadka u daawada aad buu anfacayaa. waxaana kaloo isticmaala order flow traders oo hagarlaha order flow students oo kale ayaday isticmaalaan. Marka waa level 2-ga. Advantageskiisa waxaa ka mid inuu ku tusinayo liquidity, suuqa liquidity-giisa oo meelaha resting order clusters, meelaha ordersku ay ku urursan yihiin oo goldi trading-ka ka qaato dhowrka trade ka qaatay oo muuqaalada ka horeeya YouTube-keena waxaad arkaysaa meelaha trade kaga baxayo ama meelaha ka soo galayo, meelaha kaga baxayo oo kale waa meel aan arkayo liquidity badan inuu yaalo, sell limit badan ay taalo. And then markaas ay noqonaysaa inaan ka dego sababtoo waa halkii aad chart qaawan arkahayd meel wig uu yaalo aad dilahayd waa laga noqonaya TP-ga ku qaadan lahayd. waxaa oo historical data waxaa ka fiican inaad go'aankaaga ku qaadatid waxa weeye real time order flow data, datada saxda ee suuqa hadda ku jirta ee hadda taala, ma aha wigii shalay sare ama yesterday high iyo yesterday low iyo waa ogahay meelaha waa laga celiyaa suuqa inta u badanna waa laga celiyaa, laakiin symbol waa historical manipulation bay u badan yihiin sababtoo qof kasta uu ogyahay in halka laga celin doono suuqa. Marka waxaan u baahnaa in data sax aragno oo level 2 oo aynu aragno wigii shalay tusaale haygii shalay maxaa yaala 100 contract oo sell limit yaala gold 100 contract markay suuqa u eegna muxuu ka yahay kaba soo qaad inuu waxba ahayn. And then waxaan dhahaynaa okay maadaama suuqu 200 contract waxa la trade gareynayo 100 contract is nothing, sadarteed waa jiireynaa trade-kiga waa sii haysanaya. And then halkii profit-ka ku qaadan lahayd meeshaas oo kale uu yar kuugu socdo. Marka waa muhiim advantage-ka leedahay. Limitation ba marka buu leeyahay isagu.
limitationkiisa waxaa ka mid ah oo dee wax walba waxay leeyihiin wax adugu hoos u dhaca ama uu ku xun yahay ama ka dhiman. Okay, kuma tusayo every order walba kuma tusayo, sababtoo ah waxaad arki karaysaa buy limit hoos taalla bricekaaga ka hooseysa, laakiin kuma tusayo buy limitkaasi ma dhaba mise waa lagu banaynaya. marar badan waxaa dhacda suuqa intay soo jiitaan oo price uu levelka suuqa marayo hoos buy limit weyn lasoo dhigaya, suuqa uu soo cararaya, hoos bimaanaya, hoos the moment uu yimaado ayaa loo baneeyay buy limitkii laga qaadaya, and then meela islahayd stop losskaaga weeye ama aad islahayd muxuu ahaaye wuu kasoo kala wareegaya buy ka gal ayaa lagu banaynaya. marka isagu dhibtaasuu leeyahay. dhibta kaluu leeyahay waxa weeye in aad meela islahayd waxa weye halkan waa la dhaafi doonaa, sida hadda tayn sheegaynay oo kale oo 100 sell limit haddii ay liquidity sare taallo oo aan u orodno suuqii uu tago isla okay inta waa la dhaafi doonaa, waxaa laga yaabaa inay iceberg kugu sameeyaan wax la dhaho ah 100 contract bay muujinayaan suuqii ku muujinayaan, and then waxay rabaan inay 1000 contract oo kale sell limit galaan. suuq markuu meesha yimaado 100 halkaas soo gasay inuu galo kadibna priceku tartiib uga falcesho ama kor u dhaafo ama la yara hakiyo ayaa waxa dhacaysa inay ku soo galaan 990 dheeraad soo geliya, and then 1000 sell limit suuqa soo gelayso. salaries marka ka arkaana sell bay la dhacayaan oo daqiiqad buu ku kala wareegaya, seconds buu ku kala wareegaya suuq. marka iyaduna limitation ka way leedahay, laakiin 99% way dhaantaa waxa weeye level 1ka. okay, level 2ga waxa footprintigu waa noocan oo inaan aragno candleka buyerskiisa iyo sellerskiisa, inaan aragno buyersku markay xoog weyn yihiin midigta ma ku leeyahay imbalanceyo ama buyer value gaabiyo, halkii aad ku arki lahayd hal candle inagu kuma aragno imbalance ama buyer value gaab kuma aragno. 3 candle baan ku aragnaa, candleka koowaad haygiisa iyo candleka saddexaad lowgiisa haddaynu buy imbalance ah rabno oo kale sooma. marka tan oo kale ma aha every one candle waad arkaysaa imbalanceyada ku jira maselba mise buy. waxaa arkaysaa sidoo kale candleka waa lagu dagaalamay sellerska iyo buyerska yaa haystay wax daltal dhaha kasoo baxayo buyerska laga jaray sellerska, and then waxay ku xaqiijinaysaa in suuqu sii socon karo in la kala wareegayo aan soo on. halkan oo kale halkii aad waxa weeye footprintigii hore aynu aragnay aad daawan lahayd waxaad daawanaysaa clusters oo intii aan nambaro daawan lahayd, nambaradu waa dhib badan yihiin xoogaa xalaya in processka kugu yar adkaado, waxaad daawanaysaa clusterskaas iyo kuulaha burburan. kuushaas markaa tusaale 100 contract buy ay galaan way ku weynaanaysaa instead of number akhrin lahayd kuulahaas oo kale. marka dhaatadan oo kale way ka yara qaalisan tahay ta koowaad, laakiin waa level 2 iyada u dheedo. marka football waxa weeye footprint visual oo kala ku samayn kartaa instead of kan hore oo kala daawan lahayd numbers midigta iyo bidixda ka yaala candlekaaga. okay, order booga iyaduna waa buy limitkii sell limitka hadda ka sheekeynayno ah. tusaale hadda pricekas wuxuu marayaa 3892 oo priceska gold oo kale weeye, gold futures. marka kor hadduu u kaco meesha koowaad laga celin karo waa falaadha labada falaadha cad. tusaale ta hore haddii laga celiyo 3895 haddii laga celin karo 3893 sorry haddii uu suuqu tago oo ay qaataan 35ka sell limitka ee yaala, wuxuu u baahan yahay inuu qaado 24ka sell limitka ee ku xiga, 17ka sell limitka ku xiga, 35ka sell limitka ku xiga si uu gaaro markaa 38 96 levelkaas ah oo u dhigmaysa meeshu maray ilaa halka ilaa 60 bib oo kale baa laga yaabaa inay tahay ama 50 bib oo kale. 35 lotka markuu qaado ama 35 contract sellka markuu qaado ayaa waxa laga yaabaa inuu halkaa ku istaago ama ka sii sareeyo doonto 44ka. marka aad baad ugu tareer garayn karaysaa sometimes wax badan oo ku anfacaysa, sababtoo ah waxay u jeedaa real market orderskii suuqa yaale inkastoo aanu manipulation ka maqnayn. haddii suuqu dhanka kale uu aado oo tusaale sell limitka u soo horeeya falaadheeda cadaanka 35ka price levelkiisuna yahay 3893 uu suuqu qaadi waayo 35 contract, hadday buyersku qaadi waayaan oo sell limitka ka iibsan waayaan, waxaa dhacaysa in sellersku ay iibsadaan 13ka buy limitka u soo horeeya 3892 egg, and then 25ka ay iibsadaan oo waxa hoos jira waa buy limitkii, waxa kor jira casaankan waa sell limit. marka inay qaadaan buy limitkan 13ka 25 and then price-ku hoos u dhaco waa sababta market microstructure ay muhiim tahay suuqu engineering iyo price discovery-ga suu sameeyo. level 3 data waa datada u dambaysa, waa full order book plus order flow. okay, marka level 2 data baynu maraynaa billahi alxamdu. level 3 insha Allah taala way u gudbi doonaa, laakiin waa maxay iyaduna? waa levelka saddexaad ee datada aynu ku isticmaalno suuqyadan oo suuqyada markay leenahay waa suuqa futureska, suuqa saamiyada, suuqyada kriptada. marka forexiski maadaama decentral yahay futureska waynu datadiisa eeganaynaa oo waxaynu eeganaynaa tusaale euro USD futures
baynu eeganaa oo CME ah xogteeda kadibna USD MT5 ka qaadanaya okay marka level 3 isaga wuxuu ku tusinayaa every order change meesha laga galay meesha laga cancel gareeyay meesha lagu bedelay iyo meesha trade-ka laga qaatay inta buu ku tusaya tusaale hadda anigoo kale level 2 markaa isticmaalayo ma arki karo traders kale ama institutions kale ama algooyo kale taradhada qaateen ma arkay simple waxa arkay in konton contract la galay 100 contract la galay 500 contract by limit taal aan soo on laakiin waxaad arkaysaa yaa dhigaya waa ay qofku soo dhigay miyuu qaaday miyuu cancel gareeyay hadduu cancel gareeyay goormu cancel gareeyay haddii la qaaday imisuu galay hadduu ka baxay imisuu modify gareeyay hadduu bedelay aan soo on marka full down baad arkaysaa everything oo order booga ama depth of market ku jira ayaad arkaysaa every change-na waad arkaysaa okay waxaa isticmaala institutionska oo ah kambaniyada waaweyn ee suuqyada ka trade gareeya waxaa isticmaala exchangeska oo ah sariflayaasha waaweyn waxaa isticmaala high frequency traderska isticmaala oo ah kombuyuutarada waaweyn ee suuqan ka trade gareeya okay kuwaasoo dhan baa isticmaala marka inagu hal kuma jirno retailers kuma isticmaalaan oo xoogaa waxay u baahan tahay infrastructure bay u baahan tahay iyo dhismayaal waa advantage-keedu waxa weeye complex transparency oo transparency macnaha waxa weeye every order baa arkaysa halkii aynu level 2 ga arkaynay orderska qaar la qaadayo qaar la cancelayo qaar ay yihiin manipulation oo tusaale 200 oo lod intii la dhigo suuq markuu yimaado 900 lod la gelayo oo hoos ah halkii ay isla 200 kaliya waa la dhaafi doona lagu kala wareego marka isagu ma aha everything waad arkaysaa intentiga iyo wuxuu u jeedo iyo qofkani inuu bedelay iyo modificationka iyo executionka iyo cancellationka iyo entry iyo exitka inta buu arkaysaa okay marka limitation bay leedahay limitationskeeda waxyaalaha ku xuntaa waxa weeye waa very costly waa aad bay u kharash badan tahay waxa laga yaabaa 100,000 inaynu ka hadallo waa heavy data xog badan bay ka rabtaa computerkeena caadiga ama qaadi karo computer waaweyn ay rabtaa waa not for real trader retail trader access retail trader ahaan laguma siin karo oo ma helaysid marka waxaa jira level 2 data oo u dhiganta level 3 oo sida level 2 oo kale u helayno halka in hal exchange heli lahayn gold oo kale hadaan ku trade gareyno hal exchange data halka heli lahayn waxaynu helaynaa ugu yaraan konton exchange data oo la isu keenay oo Bloomberg oo kale oo bishii $3,000 ay siiyaan baa jira computerka kugu shaqeynaya laakiin level 3 data ma heli karno unless aynu noqono the institution weyn oo higher institution la dhaho inda marka 100 trader oo Soomaali ay ka shaqeeyaan asoo marka ayaduna intaas ku xun tahay retail tradersku malaha waana data dependent waana costly hadda halkan oo kale waxaan ka hadlaynaa HFT waxa weeye level 3 datadiisa waxa u baahan tahay computerada waaweyn machines-kaas u baahan tahay data badan baa u baahan tahay koronto aad u fara badan baa u baahan tahay heat badan buu soo saaraya qaboojiyaal baa u baahan tahay aan soo marka waxa laga yaabaa in islaaniyo murshid baa muxuu ahaayay wax kala sameeynas marka intaas ayaan datada ku ekaysiinna saaxiibayaal hope inay intaas wax ka anfacdo mar walba haddii Soomaalina waa inaan barano waa inaan hore u socono waa inaan hore u dadaalno waa inaynu adduunka la tartanaa wax la dhaho ma jirto muxuu ahaayay inuu aqoontu qofku meesha iska taagnaato marka inagu dagaaladeena iyo dhibaatooyinkeena iyo rafaadkii soo maray wax badan ka barano taas oo meesha u taagan haddii Soomaalina meel kasta aynu joogno wadankeena iyo dhulkeena iyo dalkeena iyo dadkeena u burbursanyiin marka waa inaan wax ka barano wixii tagay adduunku wuxuu sameeyay in ay wax ka barano kadibna hore u socon hore u kacno hadba talaabadeenu qaadi karnaa in qaadno haddaynu ordi karnaa aynu oradno haddayna ordi karin aynu taabacno haddayna taabici karin aynu soconno haddayna socon karin aynu tartiib waxa weeye sida awr xiran oo labadooda ka xiran kale u soconno haddayna saa u socon karin waa inaynu guurguurano haddayna guurguuran karin waa inaynu xamaarano si aynu asaageen iyo adduun kale u gaarno marka saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan like iyo share iyo commentiga oo ideyada ku saabsan barnaamijkan iyo muuqaalkan hanaga ilaawin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh